كنت عن wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo joogtaan halkani waa Somali American TV oo si toos ah ka soo gudbinayno studio-heena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Barnaamijkan ama waraysigan isku soo foolay ayaa daawadayaal waxaanu ka hadli doonaa xaaladda guud ee dawlad deegaanka Soomaalida. Waxaan u eegi doonaa iyagana isbedelka cusub ee ONLF iyo shirar ballaaran oo ka socda qurbaha gaar ahaan wadankan Mareykanka gobolkan Minnesota waxa garabkayga bidix fadhiya Huud Badruddin Cabdullaahi oo isagu ah cilmi baare madax banaan oo aan ka wareysan doono arrimahaasi iyo arrimo kale marka horese Huud ku soo dhaw Somali American TV marka hore علي أدي أدبض محسن تهاي وعنده وياه waxa taa cilmi baare madax banaan shaqada caadiga maxay tahay Huudu shaqadayda caadiga waxa weeyaan Mareykan maxaad ka haysaa Mareykanka waxaan ka ahay waxaan CEO ka ahay company la yiraahdo Wadani Language and Research Center waaya company-gaas shaqooyinka aan ku qabano waxa kamid ah dhowr hawlood ba isku jiraan research madax banaan waan sameeynaa articles aan qorno waxa kale oo sameeynaa translation luqadaha ah waan sameeynaa waxa kale oo research hadda ku wadnaa oo doonaynaa inaan mar dhow hadii la yiraahdo wax tara ka soo saaro horumarinta luqadda Soomaaliga maadaama generationo fara badan oo iska soo daba yimid ay dalkeena Mareykanka hadda isugu yimaadeen oo isku xidhnaanta wadankeena mar walba loo baahan yahay sida mujtamaca kale ay halkan ugu nimidba inuu xoogaysto una baabi'in in afkaad horumarisan afkaad la horumariyo oo dhaqankii cilmi baarista sameeysan maxay ku saabsan nooleeyo inta badan waxyaabaha socialka baan xoog saaraa siyaasaduna way ku jirtaa waaya wad ma santahay su'aalaheeni baan gali doonaa dilaahay ka dhigo marka uu horso waa sidee xaaladda guud ee DDS xilligan markaan joogno waa sidee xaaladda waa su'aal fiican Ali DDS xaaladdeeda marka la qiimeynayo sida adigu baad og tahay waxa uu weyn laga qiimeeyo waxa weeyaan dhinaca amniga sababtuna waxa weeyaan 70 sano ama 80 sano deegaankaasu waxa ka taagnaa qas saddex dagaal oo waaweyn oo waxa deegaanka ka dhacay hadda ka hor caalami ah oo ay kamid yihiin dagaalka labaad ee adduunka uu ka dhacay deegaanka si rasmi ah oo uga dhacay deegaanka Soomaalida marka qiimeynayna miisaanka aan saarayna ma aha miisaamada meelaha kale hadda laga qiimeyn karo kale amnigaas baan marka ku qiyaasayna muraayadahan ku fiirinayna waa amniga wixii hadda 2018 ka dambeeyay si aad u xawli aad u sareysa way isu soo bedelaysaa taariikhdii violent-ga ahayd ee deegaanku Ali waxaad ku garanaysaa maanta deegaanka Soomaalida ama 7 sano ba hadda taariikh ku siman wax badan kama dhicin oo siyaasadeed wax badan oo siyaasadeed kama socoto waligeed ma ayna taariikhda ka dhicin iyada oo dalka ay ka tirsan tahay Ethiopia oo berigii hore oran jiray xaggan bariga un rabshaduhu nagaga yimaadaan oo taariikhdoodu xitaa markay taalooyinka sameynayaan xagga bariga ay u jeediyaan dadkooda warrior-kooda iyo dagaalyahamiintooda maanta waa meesha kaliya u soo wada qaxeen ay joogaan jigjiga aad iyo aad buu deegaanka Soomaalidu u soo kabanaya waxyaabihii ku dhacay hore ka sheekaysan mayno waad og tahay mar walbana mujtamac ama bulsho dhisan oo dawladeedii iyo shacabkeedii iyo ganacsatadeedii ba leh cabasho ka jiraysa marka si kooban deegaanku taariikhdiisii waa maalinta ugu fiicnaa way maamulkan marka uu hogaaminayo ama hormuudku ka yahay madaxweyne Mustafa Cagjar dad badan baa sulugsan oo marka aad warbaahinta dhageysatid aad uga cabanaya amnigaas ka mid ah dadkii baa wali si gooni loo dilaa bay yiraahdaan dad baa la xirxiraa dad baa dhul laga qaadaa dad baa la barabixiyaa arrimahaasi oo dhan wax la xukuma jiraan aan dib ugu yar noqdo aniga oon oranin waxba kama jiraan haddana ma rabo inaan ilaahay waxba ka jiraan sababtu waxa weeyaan anu deegaanka hadda ka imid waxaan soo moogahay rabadaanta dhexdeedii baan ka imid dhowr meelood baan marka ka fiirinaynaa cabashooyinka jira cabashada siyaasadda waligeed lama waayo waxaa sameeya inta badan siyaasiyiintana structure-ka markaa jira ama system-ka jira ma wada deeqo ay baabaxaysa oo hadaba dawladda bay xoog kaga saartay meesha marka sawaxanka siyaasiga iyo mar walba meesha uu oolayaa dilalka ma jiro haba yaraatee dil siyaasadeed oo deegaanka Soomaalida ka dhacay oon ognahay muddo 7 sano hadda ku siman ama ku dhadhow intii isbedel ku dhacay hal qof oo siyaasad loo dilay ma jiro tantada marka
dilalkan kada kale iska dabiiciga ah ama police brutality ha noqoto hadda halkeena way ka jirtaa si fiican ba u jirtaa adduunka oo dhan bay ka jirtaa waxaan markaa isweydiinaynaa dadka ay dhibaatadu gaadhay ma haystaan wadiiqa ay ku cawdaan oo in la dilay ay ku sheegaan arrintaas way jirtaa qof kasta oo ay dhibaato soo gaadhay oo halka jooga adiga cali waad hubin kartaa wixii dhaca ama booliiska dhexdiisa ka dhaca oo qof la dilay ama qof la xidhay ama qof la garaacay ah waa system dhan oo jiro oo lama difaacayo lama dhihi karo ma dhicin lama oran karo laakiin waxa wax fiican ah ayadana qofka ay wax ku dhaceen maanta inuu u baahnayn ruux dibad ka hadla qofkii ay wax ku dhaceen inuuna sugaynin wariye intii war loo dusiyo cali xaraare oo VOA-da jooga uu yiraahdo halka mushkilad baa ka jirta waalidkii baa hadlaya eheladii baa hadlaysa asaga laftirkiisii baa hadlayaba hadda arrintaas waxay marka ku tusinaysaa system isa sixi kara oo hadduu khalad ka dhaca xitaa khaladkiisii sixi kara inuu meesha ka jiro waa fafaale fiican runtii waa maasantay hudu haddaynu deegaanka siyaasiyan aynu hoos u eegno weliba sida dadku ay inta badan ay tilmaamaan waxaa la yidhahdaa waxaan ognahay in dagaal Tigreega iyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Abiy Ahmed in uu soo dhex maray dad badan ay ku dhinteen waxaan ognahay dhawaan in uu magacaabay nin madaxweynaha Tigreega inay soo diideen inay iyagu nin doorteen ama xaalada waxaan ognahay saasoo kale inay u madax banaayeen inay madaxweyne samaystaan gobolkiina ama meeshiina deegaankiina ama dowlad deegaanka Soomaalidu waxa la yiraahdaa Mustafa Cagjar oo imika madaxweyne ka ah xilligan waa nin uu gacanta ku hayo Abiy Ahmed oo siyaasadda Abiy markaas fuliya laakiin isagoo aan u madax banaaneyn dadkiisa iyo horumarkiisa iyo siyaasiyan ciidankiisa ha noqoto nin aan u madax banaaneyn laakiin gobolada kale ay ka duwan yihiin waxa kale oo la yiraahdaa qabaa'ilka marka laga hadlayo ama qowmiyadaha ama xaaradu jigjiga waa ka shaqeyn karaan korontada haystaan airport ka haystaan meel badan bay ka shaqeeyaan laakiin dadka Soomaalida deegaanka Soomaalida u dhashay Tigreega gobolkiisana kama shaqeyn karaan ama xaarna kama shaqeyn karaan marka meel oran kareen wax badan gacanteedu kuma jiraan maxaad oran lahayd علي سؤال مجوين بدي وديسي وفربضن شوابا بدن بيالنا سهدي على يراهو حاجة وقوية إيو ربشدها كتيرة وأستاذ الشيكتاي وأن قيب كم من الترانسيشن كي نبقى بدنا إثيوبيا وكسعودي سيد حقيقة أنا ونكفائدني ترانسيشن كان كفائدني سدح بلاد مركي وترانسيشن كاس السعودي ورئيس الوزراء إحنا مجعونا أنا إسبدلوين بعضنا كنا كداعي وحقوين إنه كفاني كراي نوران كراد إنك أبي اللي يراه ديجان كصومالي وكسم يوحوها ننكي ودن كخربي ونجاك حي أبتلي إيو إنه نقف كادر كي كم ذا سيستم كدحديسي سيدا دقن كيتوبي أهانشري إنه نمجعابين إيه قف وحبرتي وكم ذا هذانا سكشن كي بالشدة اللي بعتيه إنه نوك يعني ومدحوينا كدقي ونكن هذا أشيكتا مصطفى محمد عكشرة سيد أكتب وحكم ذا ذات كي بعتوينكو قارين فامل كيسي سجبا ودن كانوا كم مقنع تاسورتا إفعال وين بينو أحد أنت وحكي كده بفائدة دي وإحنا نقدر سبب مويه وإحنا قصونا معنا أكين حاجة إننا يسوون اسمها ملك رأهين waxaan horta ogaataa dhaqanka Itoobiya de awoodii lagu magacaabay wali way jirtaa isaga isagoo xildhibaan ma ahayn baarlamaan ma ahayn asagoo United Nation ka u shaqeeya baa la magacaabay oo la keenay systemkan la keenayna wuxuu isu bedelay xisbi oo Abiy Ahmed ka taliyo waxaan ku sheegi karaa inuu gudida fulinta ku jiro xisbiga Mustafa inuu ku jiro oo haatan ahayn sidii Soomaalidu ahaan jirtay marka systemkoodu in markii de guryaha la isku soo xidho la isxoogo iyo in kale inagu ma ogin laakiin shirarka siyaasadda decisionada siyaasadda lagu qaadanayo qayb ka yahay tagan kaliya ma aha Soomaali fara badan baa taga waxa kale oo iyadana aan inaan xusna ay tahay bal isbarbardhig culture-kii hore ee maamulka naloo sameeyay anaga maamulada naloo sameeyay deegaankanaga taas wax qarsoon ma aha dadku wali wax xor ah ay si fiican u doorteen waa uun la gaari doonaa hadii alla yiraahdo هذا مصطفى هذا مدة 7 سنة أبو وطن كهستا ما دعي كرتو إن أين واحد مشكلة دي مهل أين كدعي كرتين انتاس هدي ويهي قفلة لا هيو أو ده في جيسان هذا أو جمعية لغة كحيران وطلاب قاعد كريني ما سيدي هراء عادي بعد على هذا كل الكواجل الأساسي وحل يدي هاي 7 سنة هي 8 مدحويني يشتري هالمر مركز بقول دقنتين نظام سياسة هذا ديجان كتيرة
xagga autonomiga inay iyagu ismaamulayaan madax bannaan yihiin tii annagu waxay nala tahay inay aad madax bannaan yihiin sababtoo ah marar badan oo niman mucaarad ay dhaheen Addis Ababa tagnay oo waxbaan soo karkarinay oo nimanka waanu cunaynaa oo Arbacada iyo Isniinta dambe la cunaya warkii been buu noqday tan inay Soomaalidu meel kale ka shaqayn karin su'aashaas inaan si fiican isu kortaagnaa u baahan way mushkiladaas way jirtaa laakiin waa in loo fiirsado ma dhaqanka Soomaaliga keenaya arintan mise siyaasadeed oo jirtaa keenaysa way hadda Addis Ababa investmentiga ka socda xaafadan ay Soomaalidu degto waad aragtay hadda arkina in lagaga sheekeeyo waa suuragal ma arkin investment aad weyn baa ka jira hoteelada hadda 5 star oo Soomaalidu wada leedahay oo tira ah baa jira oo ka shaqeeya Soomaalidu dhaqankoodu markii ayaga Etoobiyaanku ay isdhex galaan waa dadka xadaarad roon dadka Etoobiyaanka ah Soomaalidu dad uga xadaarad roon weeyaan way waa dad aan ogoleyn shaqooyinka hoose inay qabtaan hadda magaalada Jigjiga arkaysa leeyahay lama shaqaynayo adigan cali hadda tagto ninka Soomaaliyeed inaad arkatiyeen ay tiraahdo war bakaale tuu badan ee xid ama wax yar guriga iga samee ama musqusha ii hagaaji oo kula dagaalamay Soomaaliga waa shaqaan Soomaali lahayn bay warka waxa kale nin laundry ka sameeyo la ireenay wadinki waa arkaysa la ceyrsanay marka mushkiladaasi waxa u badan ay u jirto waxa weeyaan inaga dhaqan Soomaaliga waa in xadidaya oo ogoleyn intaad tagto gobolka Uraagada inaad cooshadeero dabakaaya ka furato oo gabdhaha Soomaalidu maalinba xabad xanjaa kala cararaan ayagu way joogaan Jigjiga dhex fadhiyaan oo la jeedaayo oo ciyaalkeenu iskaga ciyaaraan oo marka dhaqankeena arintaas sababaya ma aha waxay xagga dawladda federaalka ah iyo shaqaalaha Soomaalidu say ku yihiin arinta cabashadeedu way socotaa waxaan u maleynayaa iyada laftirkeedu inuu culture-kan Soomaaliga yahay qayb ka yahay kol haddaan ninka shaqo weyn la siinaynin oo wax badan taraysa oo caa'ilooyinkan badan u jiidanaya isku xiran anfacaysa ma ogola inuu meel heerkiisa ka fog ka shaqeeyo way oo ma santahay waxaan guud gali doonaa oo NLF waxaan ogahay in shir uu ka socdo dhawaan adaa inoo sheegi doono xilligu dhici doono laakiin shirka internet ka wareysan waxaan doonayaa isbedel cusub oo ku yimid oo NLF lafteeda inaan wax ka weydiiyo hadda waxaan ognahay gudoomiye wax loo doortay Cabdikariin Qalbi Dhagax isbedelka oo NLF ku yimid oo gudoomiye ku yahay Cabdikariin Qalbi Dhagax iyada lafteeda aan ku celiyo ma sidii aad u lahayd lafteena waxba naloo soo dooraa oo iyaga soo doortay qolooyinka federaalku ama Abiy Ahmed iyo Ra'iisul Wasaaruhu miyaa mise waa mid idinka timi oo isbedelka aad sameeyeen oo gudoomiye u doorateen ninkan odayga aad iyo dad mahadsan tahay su'aasha waxa si fiican uga jawaabi doonaa ninkan odayga ciidu yahay way baaba si dhib yar uga jawaabaysa Qalbi Dhagax magacan waxa u bixiyay nimankii uu la dagaalamayay oo ninkani adag buu ahaa oo diiday wax kasta ninkani wuxuu ahaa ragii gudaha ka dagaalamay oo hogaaminaya ciidamadii wuxuu muddo dheer ahaa abaanduulihii ciidamada oo NLF oo dhan dagaalka weynaayo oo NLF ka soo caan baxday ay cobale maleynaya dagaalka weynaayo oo NLF qaadin ninkii hogaaminaya weeyaan ninkaas marka Itoobiya xaga ka keen hadda Itoobiya noo keeni karto ama cid ka dambaysa ay laakiin Itoobiya hore la dagaalamay ma aha oo Itoobiya kale iyada lafteeda isbedel baa ku yimid dadka sheegaya inuu Qalbi Dhagax la soo magacaabay oo meel kale laga keenay waxay sheegayaan Itoobiyadii hore inay keentay waxay sheegayaan inuu gumaysi tahay tan joogta marka iyagu markay kala saaraan ba su'aashaas laakiin si caadi ah hadii looga hadlo dacaayadan waxay ka imanaysaa khilaaf oo NLF dhexdeeda ka jiray oo aad u weynaa oo cidna ka qarsoonayn way ninka la yiraahdo Cabdikariin khilaafka isaguna qayb ka ahayn aslanba wuxuu ahaa isaguna qola gooni u go'day oo isku daysay inay bridge noqdaan isku xidhaya labada dhinac ali oo taariikhda oo NLF hadda dib ugu noqoto khilaafkoodu mar walba line u haystaa jiray wax khilaaf badan horta ururkan ahaa mar kastaba way line marka waxa jiray dhaqan ahaa oo khilaafkoodu haysto ururka meel wadanka ka baxsan baa lagu aasaasay Soomaaliya lagu aasaasay ururka garabkiisa militarigana waxa laga aasaasay ogadeen dhexdiisa ayaa la geeyay qoladii aasaastay madaxda ahay dibadda u qaxeen oo ururka ka hogaaminayeen qoladii militariga ahayd ee la aasaasay wadanka dhexdiisa laga sameeyay oo Cabdikariin Sheekh Muuse kamid ahaana gudihii baaqi ku ahaayeen markastaba marka parallel structure baa jiray u dhaxeeya labadoodii hadda gudihii marka lagu noqday laba ideolojiyadood baa la kala yimid qoladii dibadda ka timid ee uu Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi uu hogaaminayay fikirkoodu wuxuu ahaa fikir iska cad oo مثلا siyaasadda cusbeed ee markaa timid inay boos ka helaan iyaga ahaa waxoodu ayada oo awood oo NLF ay la timid oo ay ku gargoortami karto wax ku goosataa ayna jirin hadaan si madax banaan uga qiimeynaba qoladii gudaha timid
laakiin ayaga culays fara badan baa saaraa waxay lahaayeen dhaawac oo agoon bay lahaayeen naago weeray oo ragoodii la laayay baa jiray qaxooti bay lahaayeen dhowr kun oo jeel ogaadeen ku curyaamay bay lahaayeen oo joogay ayaga marka waxa la qumaneed waxa u darayd in transition kan horta intaan ururka transformation ururka lagu sameeyo oo balsalka ay ka degaan iyaga isdoon doontaan oo isu ururaan Cabdiraxmaan marka wuxuu u muuqday in waqtigu ku yar yahay oo arinta laga gaari karin marka waxa la qumaneyd xoog kale oo siyaasadeed inuu raadiyo oo aan ahayn oo nafti oo Ethiopia siyaasadeedan cusub kaga qayb gali karo wax kaga goosan karo qoladan natiibe ka xanaaqeen oo in laga tagay wixii iyagu lahaayeen laga qaadanayo bay u arkeen horta conflictigu halkaas ka dhacay kilalku ma ku jiray conflictigooda oo maamulkan Mustafa Maxamed Cagjar iyo nimanka kale ma ku jireen markii la yiraahdo kuma ina jirin laakiin khilaaf kala dhixiyay dagaalkana waxa shakhsigu inta badan ku soo urursanaya laakiin gudoomiyaha hore ururka oo la faa Cabdiraxmaan Shamahdi baa bilaabayo maalinka Mustafa la magacaabay wuxuu yiri Stooch baal dabaqoodhi baa loo magacaabay bil wadankii de Mustafana kolkii uu awoodii helay asagana arintii uu ka falceliyay mar walba marka waxa jirtay conflictkaas kale personalka ina uu jiray saasa de siyaasadda guudna way saameynaysaa meel kastood ka imika ma laba garab oo neefmis waa hal garab waxa fiican waa su'aalaadii aad wanaagsan khilaafkoodii waa la soo afjaray shir jigjiga ka dhacay hadda bishii aynu soo dhaafnay baa lagu soo afjaray ninka la yiraahdo Cabdikariin Sheekh Muuse gudoomiye ku xigeen oo ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo waqtigiisii dhamaaday labadooda marka waqtigoodu uu dhamaaday oo Cabdiraxmaan 4 sano taamkii la doortay ahaa way soo dhamaatay 2019 baa la doortay Cabdikariin baa marka la isugu soo ururay golihii dhexe oo ah awoodda ugu weyn oo nafta inta ayna congress-kooda qabanin yaa marka fadhiistay Cabdikariin isku meel gaar oo magacaabeen marka saas darteed Cabdikariin hadda waa ku meel gaar Cabdikariin waa gudoomiye ku meel gaar wuxuuna gudoomiye si ahaanaya inta laga qabanayo shirweynaha oo muddo 3 bilood ay u qabteen marka dambe in la dooran doono oo sharaxi doono iyo in kale way sugaynaa Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax taariikhda odayga sheegay inuu halgamaa weyn ahaa anu waxaan ahay ninkii ugu horeeyay waraysi ka qaada codol isagoo dagaalka ugu xumaa ku jira oo Ethiopiaanka ay soo dhajiyeen ama ay sheegeen warbaahintoodu inay dileen waliba meed nin kale ma qiyaasta u eg ay keeneen meesha ninka uu xasuustaa marka ana soo helay isagoo waa noolahay Cabdikariin baa marka ilaa xadkaas aan horta isaga garanay waan ogahay heerka Ethiopiaanka iyo isaga heerku ka taagnaa isagu laakiin siyaasaddu waa wax isbedel badan leh waan ku lahaa Ethiopia lafteedu isbedel aan ka bariga ahayn bay ku jirtaa imka lafteedii imka shirar baad qabanaysaa shirbayna hor yaalaad inoo sharaxi doontid aan ku weydiiyo shirka waxaan ku arkay isagana wadanka Sweden oo ay isugu yimaadeen oo in laftu shirarkan yaa qaban qaabinaya yaa wada ma dawladda Ethiopia wada ma oo Europa wada maxay shirarkan ay ku saabsan yihiin sidii markii hore baan sheegay si uu eg shirku asaga is sheegaya wuxuu yahay halkan qalbi dhagax baa ku sawiran waa ninka adigu wareysatay isagoo jiida hore ku jira kana waa calanka oo neefta meesha yaala shirarka Sweden ka dhacay sidoo kale iyaguna ahaayeen cali waxaad ogtahay nin in badan qurbaha joogay baad ahayd oo wariyuhuna siyaasadda cid uga xog ogaalsani ma jirto oo neefta xoog weyn bay dibadda ku leedahay taageerayaasha ugu badan ee dibadda ee gobolka ka soo jeeda waa oo neefta communities kan shir inay qaban karaan waad garanaysaa ayna uga baahnayn cid halkan baan ku qaban jirnay banaanbaxyada iyo shirarka oo garanaysaa madaxdii Ethiopian challenge garan jiray oo ka awood badnayn siyaasadii Mareykanka isku dayeynay inaan influence garayno oo aan ku guuleysanay waxaanu qayb weyn ka ahayn kacdoonka Ethiopia ka dhacay halkan ee kiciyay gudaha ee markii dambe xukuumadda Tigreega meesha ka saaray waa xooggan shirarka qabanaya Sweden ku qabanaya Minneapolis ku qabanaya hadda oo isku filan oo isku filan oo cidna waxba uga baahnayn way daha Badruddin aan ku weydiiyo shirkan qiyaasta waxaan qiyaasayaa inaad adigu aad ka tahay dadka qaban qaabinaya shirkan muxuu ku saabsan yahay xaguu ka dhacaya goormuu soo dhacaya bal intaas ka raacay cali aad baad u mahadsan tahay shirkan wuxuu dhici doonaa bishan May aynu ku jirro 10keeda wuxuu ka dhici doonaa magaalada Minneapolis hotelkan caanka ah ee Soomaalidu shirarka ku qabsatay DoubleTree by Hilton adresskiisana waxaan ku qoran yahay screenkaad noo soo saari doontaa hadii la yiraahdo shirkan waxaa lagu taageerayaa midnimada ururka ONLF
caliyow khilaafkii onlf bulshadii deegaanka Soomaalida mushkilad aad badan bay u horseeday onlf waa movement haddayna xil haynin haddayna military xoog badan lahayn iyo haddii kastaba mar walbaba waxa weeyaan awood aad u badan deegaanka Soomaalida dhexdeeda kala qaybsanaanta iyaga dhexdooda ahayd marka mushkilad fara badan bay iyo wadankii geysay dadkii reemiga ahaa xitaa gaadhay oo kala qaybsay shirkanagan ujeedadiisu waxa weeyaan ina lagu taageero heshiiskan ay hadda gaadheen ay aqlabiyadoodii intay isugu yimaadeen ku ansixiyeen inay midoobeen fariintaasan halkan ka diraynaa Minneapolis gaar ahaan waxay ahayd meelihii kala qaybsanaanta ururka qaybta weyn ka ahayd dabkan hadda u shidaynaa waxaan leenahay wixii hore ka soo gudba isu imaada gacmaha isqabsada fariintaasan deegaankanagina u diraynaa halkaas ay ku saabsan tahay arintan waxa kale oo meesha ka maqnayn intaad ogtay mushkilad fara badan in badan waad ka warantay ba deegaanka ka jirtay nimankii dhibaatada dadka u geystay gaar ahaan ninka Cabdi Ilay la yiraahdo oo isaguna bariyahan dambe laftiisu fariin soo diray maaldhow soo noolaaday oo doonaya isaguna inuu shaqaysto oo ciidamo badan ninkaas oo ganacsada badan oo Minneapolis jooga rakalo ragiis kamid ah iyagana soo cararay oo meelahan ku dhuumanaya oo rabo in Mareykanka sharci weydiistaan dadkii oo dhan Soomaalidu wax iska ilowshaday waxay u maleeyeen in wixii laga soo gudbay oo ay hadda dadka ka mid yihiin kuwaasna waxaan doonaynaa iyagana inaan familladii dhibaatooyinka gaadheen oo hadda is abaabulay inaan platform siino oo dacwado raba inay ku soo oogaan dadka noocaas oo kala ah marka familada noocaas oo kala iyagu iskood soo urursadayna shirkanagana platform buu yahay way imaan doonaan hadii la yiraahdo waxaana halkan jecelahay inaan uga baaqo cid kasta oo kamida familkii Cabdi Ilay iyo xukuumaddiisa iyo xukuumadda Tigray ay dhibaateeyeen ee Mareykanka joogta fursadaas inay u bannaan tahay ku soo beeraan qoysaska is urursaday ee doonaya inay kiiskooda geeyaan maxkamad caalami ah iyo tu Ethiopia ay geeyaan laakiin isagii laga cabanayay hadii xukuumaddii xidhay ee xabsiga geysay ay soo deysay maxaa markaa laga qaadi karaa hadii xitaa la dacweeyo waa si fiican weeyaan waxa aan laga cabanayaba waa soo deyntiisa weeyaan iyo awoodahan la siinayo qofka marka la soo daayo macnaheedu ma waxa ma qabo qofkaasi waa ama muddadiisa uu dhameystay maxkamad mayna dhaqanka Ethiopia waxa iska jira dadka intii la xiro yaabad iska xidhnaanaysa wax dacwada hore si lagu soo ooga jirin kolka dambana waa la iska sikadeynaya ujeedku waxa weeyaan laga ma harin marka waxa ku sii daahimayna laakiin waa u furan inay maadaama halka dadkaas platform bay u tahay arintan oo iimaanaya waa u furanta wagaag maxaad kula inta ku dar lahayd inoo intana soo gabagaben barnaamijka Hood fariintaada maxaad soo dadka u sheegay aad iyo aad baad mahadsan tahay fariintayda si khaas ah waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto dadka ku nool magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo Minneapolis iyo nawaaxigeeda ee arigan Mareykanka inay ka soo qayb galaan shirkan aad iyo aad muhiim u yahay wuxuu si gaar ah muhiim u yahay familladii dhibaatooyinka ku dhaceen wuxuu muhiim u yahay bulshadii taageeri jirtay oo nalafta iyo deegaanka Soomaalida waxa kale oo muhiim u yahay ummadda Soomaaliyeed ee doonaysa inay midnimada ummadda Soomaalida ka hadasho ay ka qayb qaadato dhamaantood waxa kale oo iyadana aan u sheegi lahaa dhalinyarada jecel madadaalada iyo dhaantadii dirgaxda iyo alaabtii ay rabeen oo dhan habeenkaas iyadana ay u taalo marka fariintayda intaas aan ku soo koobaya waa hagaag aad iyo aad baad mahadsantahay kaasina daawadayaal waxa uu ahaa Hood Badruddin Cabdillaahi oo isagoo cilmi baare Soomaaliyeed oo madax banaan gobolkana degan waxa aan ka wareysanayay guud ahaan xaaladda deegaanka ama dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxa aan ka wareysanayay oo kale isbedel cusub oo ku yimid ururkii ONLF iyagoo sida uu inoo sheegay Hood shir weyn ku qabanaya isla magaalada Minneapolis daawadayaal wareysi kan oo kale intaynu dib u kulmi doono inta ka horeysa waa Cali Xalaado dhamaantii badii ka tagay sida iyo nabad galiyo